استراتيجيadu waxay u sahashaa qofka ganacsadaha ah iyo ganacsigaba in waxa tallaabo hore u qaado oo ganacsigaasna waxa uu noqdo ganacsi scale up lagu sameyn karayo oo kor loo qaadi karayo dakhligiisa qodobka labaad waxa uu noqonayaa waxa aad sameysaa oo waxa weeyaan kala jebisaa ahdaafta aad doonaysid tusaale kale bishan dakhliga doonaysid inaad soo geliso ganacsigaaga muxuu yahay bisha labaad muxuu yahay bisha saddexaad muxuu yahay يعني مركز تود أهداف أو يشو يعني financial أو دونس إذا الدخل جاي كروب قاطو واحد كل ديرين يساق كابكي أدو سمين لهاي السلاس صار لنا مثلا نسبة بيش هذا صار صدق بغلا ضرر فايدة واحد دونية اللي إحنا بنقدر صوص عطا إن كان يقول دخل جيجا اللي بغلا ضرر اللي بغلا ضرر سدو قاري لهاي بحد بحد هاي إن التميسو دمان activitieski iyo xawayaan shaqooyinkii looga baahnaa si lacagta loo kordhiyo markastoo ahdaaftaada kala jejebiso bilood markay noqoto markaa bil kasta maxay tahay inaad ku darto ay isweydiinaysaa bil kasta waxay tahay markaad isweydiiso inaad ku darto macquulka yani aad u ka badbadanaynin waa inaad forecasting samaysaa qiyaas inaad sii samayn karto qiyaasta waxaad kaga qaadan kartaa dadaalkaad samaynayso yacnihii inputkaad gelinayso in uu yeelan karayo waxa weeyaan outcomekii looga baahnaa marka haddaad dadaal fiican geliso marketingka xoojiso oo waxa weeyaan customer care-ka xoojiso oo aad xoojiso waxa weeyaan naftaada iyo sidii aad u noqon lahayd qof positive wax weyn baa yani iska bedeli doona marka qodobka labaad wuxuu leeyahay samayso ahdaaf kala jejebina marka ahdaaftaasi maxay ku jiraan ahdaaftaasi waxay noqonayaan quarter inaad u samayso oo quarter marka laga hadlayo waa 3 bilood ayaa quarter la yiraahdaa marka afar quarter buu noqonayaa sanadkii marka in kale quarter-kan maxay doonayaan inaad gaadhaad leedahay 3 bilood ee soo socda اوكي استحلال بلاد مركي دمادان تود قيمينيسا دتنكيات كبرتي 10 aad ku dabaqaysa saddexda dambe marka saqaabkaas aad yani wadi kartaa qodob saddexaad wuxuu leeyahay waxaad mar walba ku dadaashaa in aad horumariso productska ama serviceska aad bixiso qaabka aad horumarinaysaa waxa weeyaan waxaad isku dayaysaa in macaamiisha kugu xidhan aad fahamto caqabada haysata like mar walba way caqabadu isbedelayaan fikirkii macaamiishu isbedelayaan baahiyahoodu way isbedelayaan marka inaad markasta yani trendka la socoto suuqa oo si fiican uga warhayso sidoo kalena baahidan isbedbedelaysa iyo fikirkan isbedelaya ee macaamiisha laftigiisa aad la socotana wuxuu qeyb weyn ka qaadanayaa in aad horumarin karto waxa weeyaan product iyo service ka bixiso qodobka afraad wuxuu leeyahay waa inaad ku dadaashaa inaad fududeyso funnelska yani sales funnelku muxuu noqonayaa sales funnelku waa meel kasta oo ka soo gali karayo dakhli ka soo gali karayo dadku ka soo raaci karayaan imka kale waxaad soo xayisiisay inaad iibinayso alaabtaad iibinayso lambar kuma soo qorin system kale WhatsApp number yani laga soo raaci karo kuma soo qorin ma fududaynin like waxaad aragtaa laga yaabaa maalin kasta wax la iibinayo laakiin aanad garanaynin qaab aad ugu hagaagto marka inaad fududeyso sales funnelka amba yani waxa weeyaan doonta loo soo raacayo ganacsigaaga si wax lagaaga iibsado fududeynteedu wax badan bay taraysa waxa way fududaanaysaa inaad generate garayso lacag generate garayso marka waxaad fududeysaa sales funnelka waa meel kala duwan laga heli karayo haday noqoto TikTok haday noqoto Facebook haday noqoto Instagram haday noqoto waxa weeyaan Twitter ama X ka iyo haday noqoto LinkedIn ka yani markastoo fududeyso meelaha laga heli karayo waa markastoo yani macaamiishna ku dhiirin karto wax ka iibsato qodobka shanaad wuxuu leeyahay teamka yani kula shaqeynaya haddii aad haysato yani macaamiil aad haysato waxaan u jeedaa haysta shaqaalahaaga markasta yani wax isku dayda inaad tababarto waa markastoo aqoonta iyo xirfadaha macaamiisha dadka yani hawlwadeenada ah ku shaqeynaya aad kor u qaado waxa fududaanaysa in iyaguna yani wax iibin karayaan waayo teamkaad adiga kula shaqeynaya haddii aan ahayn team dhisan oo isla jaan qaadi kartaan aqoon ahaan maskax ahaan iyo waxa weeyaan caadifad ahaanba aad bay u adkaanaysaa in ganacsigaas yani guuleysto si kastuu yani wanaagsan haddii teamku hire gareeyaan ahayn team wanaagsan way adkaanaysaa yani inay isla jaan qaadaan marka isku day mar walba inaad tababarra siiso oo yani tayeyso waxa weeyaan heerkooda aqoonina kor u qaado dadka hawlwadeenada ah qodobka lixaad wuxuu leeyahay waxaad aad ugu dadaashaa inaad teknolojiyadda wax ka barato dadyo badan teknolojiyadda oo ganacsiga ku jira teknolojiyadda waxa laga yaabaa inaanay si fiican u garaneyn iska daa technology oo computer bay inaan adeegsan karayn baa laga yaabaa oonay MS Office-ka mid kamid aan waxba ku qori karin Excel-ka amba Word-ka kale aan waxba ku qori karin amba presentation ma diyaarin karin marka qofku inuu si fiican u barto
wax la wixii la xiriira teknolojiyadu wax badan bay ka saacidaa laakiin qofka adaan ula haysanin baa waxaad ogaataa adduunka 10 sano soo socota haddii la yidhahdo waxa dominate garanaya 100% waa teknolojiyada halkaasay ganacsiyadii wareegayaan halkaasay waxbarashadii wareegaysa halkaasay wax walba wareegayaan marka taa haddaad kasii diyaargaroobi weydid waxaad noqon doontaa qof aan badan noqon doontaa ay ku adkaato inuu la yacnihii waxa weeyaan la qabsado iminka qofka aan waxna aqrin waxna qorin ambaan yani waxba aqri karin waxna qori karin wuuna ognahay caqabada haysta sidaas lamid ah teknolojiyada haddaad maanta sii baran weydo waxaa la tacalluqa way ku adkaan doontaa marka teknolojiyadu dee maaha inaad noqoto expert inaad noqoto laakiin inaad basicska taqaana haddaad doonaysid ganacsi kalaad leedahay waa inaad basicska editing ka taqaanaa shaqooyinkan dad baa kuu qabanaya laakiin inaad aqoontii yeelato waxay sahlaysaa in lagu sharaxi karayo shayga amba adigu aad fikir ku darsan karayso amba adigu aad nidaam yacni keensan karayso shaygaas looga shaqeeyo marka aad bay muhiim tahay basicska inaad barato qodobka ugu dambeeya wuxuu noqonayaa waxaad mar walba ku dadaashaa in aad wax ka barato suuqa iyo dadka competitorska ee wada tartamaysaan markastoo competitorska wax ka barato iyo suuqa yacni qaabka u socdo wax ku sahlanaan doonta inaad kala soo dhex baxdo yacni xisaab wanaagsan oo ah gaabaad buuxin karayso toddobadan qodob waa toddoba qodob oo aad iyo aad muhiim u ah hal qodob sideedaad baa ku jira oo ah inaad yeelato qof business mentor dadkan inta badan iyagunbaa ganacsiga wada iyagunbaa hawshooda wata iyagunbaa waxa weeyaan magaranaysa dadaalka sameeya waa wax wanaagsan taasi laakiin haddaanad haysan qof business mentor oo ganacsigii yani kula dhisaya oo aqoon kugu daraya oo xirfad kugu daraya oo si fiican ula tashan karto way adkaanaysaa inaad keligaa yani ka baxdo waayo dee shaqaalahaaga lama wada tashan kartid wax walba yani uma sheegi kartid wax walba kalama hadi kartid asxaabtooda sidaas lamid ah waxaad u baahantay environment aad ku practice karayso dhammaan aragtiyaha doonaysid ganacsiga doonaysid inaad ka gaadho waxay tahay inaad hesho qof business partner oo macnaheedu waxay tahay qofkan markuu yahay business mentorkaaga dee waa business partnerkaaga ganacsigaagiiba kula dhisaya kula hormarinaya marka iyadana mid aad muhiim ah marka kolley waxaan rajeynaya inaad ila fahamteen dhammaan 8 qodob waa 8 qodob oo business growthka qeyb weyn ka qaadanaya yani growth yacnihii uu sameeyo ganacsigaasi oo kobco oo wax hore socod u yeesho ay saacidayaan dhammaan 8 qodob aynu ka hadalnay marka wixii su'aalaha waad soo weydiin doontaan waqtigeygina waxaan 7 mar ahayn baa ka hadhay wixii su'aalaha markay tahay insha allah inooga gaarsiiya kolley mostly waxaan ka hadlaa anigu intiinan waxaweyaan hore aanan soo arag ganacsiga si gaarana waxaan ahay business mentor baan ahay inta badan waxaan ku dadaalaa waqtiyadan live-ka soo galo inaan dhalinyarada la wadaago xog anfacaysa haday noqoto waxaweyaan dhanka shakhsiyadooda iyo ganacsigoodaba calaykum assalaam fartuunay soo dhawaa waay si markaad u eegto dhalinyarada inta badan solopreneur-ka ee iyagu keligood ganacsiga bilaabeen cidna la lahayn dhibaatooyinka ugu waaweyn qabsada waxaa kamid ah caajiska qofkuna haddii uu caajis waxaad ogaataa aad bay u adkaanaysaa inuu ganacsigaasi socdo ganacsigaaga markaad solopreneur tahay keligaa tahay hadba sidaad u eegto ekaan doona laakiin markuu dee kobco weynaado aad shaqaalo badan u samayso laazim isagaas wadaya oo dee cid ka shaqaysada haysa laakiin dhibaatada ugu badan haysata dhalinyarada solopreneurska ah ee keligood ganacsiga bilaabay waa dhibaatadaas walaal caliyow ganacsigu inuu successful noqdo waqtigay qaadan kartaa waa waqti mucayan horta ma laha ganacsiyada qaarkood baa sanad oo kale ku guuleysan kara qaarkood baa 2 sano qaarkood baa 5 sano qaarkood baa 10 sano mar walba waxay ku xiran tahay anigu waqti kuu sheegi maayo laakiin waxay ku xiran tahay dadaalkaad adigu samayso iyo sidaad adaptable ula noqoteed ula adapt garaysa ama aad la qabsato suuqa iyo siduu socdo waa inahaas ku saacidi karaya istaraatiijiyad wanaagsanna haddii aad la timaado laftigeedu way yareyn kartaa waqtigeed ku guuleysan karto way soo koobi kartaa marka inahaas ku saacidi karaya muhiimadu maaha waqtiga muhiimadu waa resource-kaad isticmaalayso iyo siday 100% kaaga go'an tahay iyo fahamkaad fahmayso suuqiya siduu socdo marka taas ku saacidi kartaa kolley intiina videoskayga inta badan ganacsiga kaga hadlaa dhaafeen waxaad samayn doontaan waad soo boqon doontaan profilekayga deetana halkaasaad insha allah wixii ninka anfaca ka qaadan doontaan
sakriyow istaraatiijiyad walal qaabka loo sameeyaa waxa weeyaan sideedaba horta waxa muhiim ah inaynu ogaano maxay istaraatiijiyadu waxa weeyaan waa road map amba waxa weeyaan muuqaalka guud ee shaqada doonaysid inaad qabato iyo sida doonaysid inaad u qabato ganacsi markay tahay maxaa istaraatiijiyadu ku jiraya waxaa jiri kartaa marketing strategy baa jiri karaa oo yani ku samaynayso istaraatiijiyad aad ku samaynayso qaabkii suuqgeynta aad u samayn lahayd sales strategy baa jira aad doonaysid yani qaababa adiilka u xidho una dhamayso waxa weeyaan alaabta ku taala amba adeega ku yaala yacnihii inaad yacnihii iibiso oo yacnihii push garayso marka saleska marketingkana dee difference baa u dhexeeya marka istaraatiijiyad qaabka loo sameeya mar walba waxay ku xidhnaanaysaa shaygaasi shay yahay ma business waxa weeyaan allahuma salli calaa maxamed si guud ma sales strategy ba ma marketing strategy ba ma employees management strategy ba like maxay tahay strategy-gaasi mar walba waxaa badugu noqonaya basal lagu noqonaya basees u noqonaya waa ujeedka laga leeyahay strategy-daas iyo halkay ku aadan tahay عليكم ورحمة الله وبركاته marka haddii in yaroo tusaale kaa siiyo xagga ganacsiga kala hadaynu somehow aynu ka eegno istaraatiijiyad si aad u samayso maxaad u baahan tahay marketing istaraatiijiyad marketing si aad u samayso kow waxaad u baahan tahay ayuu la soo dhow waxaad u baahan tahay kow inaad market research samayso marka hore market researchka markaad samayso iyo suuqa iyo yacni qaabka u socday fahamto waxaad heli kartaa meelaad ka dhaqaaqo qodobka labaad wuxuu noqonayaa waa maxay ahdaafta ka leedahay marketing inaad samayso yani suuqgeyn inaad samayso maxay tahay yacnihi goolkaad ka leedahay yani ma inaad qaado brand awareness-ka kor u qaado ma inaad saleska yacnihi riixdo oo yani sales fiican aad samayso ma maxay ujeedkaad ka leedahay yani qodobka saddexaad wuxuu noqonayaa dadkaad doonaysid inaad gaadho waa in aad garanaysaa ciday yihiin ood leedahay dee dad customer segmentation waa inaad leedahay si fiican u garanaysaa cidaad targetka saarayso waayo cidaad wax ka iibinaysaa tusaale kale dadka da-dooda yani intay tahay rag iyo dumarka yihiin heerkooda yacnihii dhaqaale waxyaalahaas oo dhan waxay jaangoynayaan inaad garan karto cidan halkaad wax ugu xayeysiinaysid ku gaadhayso waxaad marketingka samaynayso yani halkaad ka gaadhayso si fiican baad u garanaysaa qodobka afraad wuxuuna leeyahay waa inaad la timaadaa competitive analysis waa inaad la timaadaa yacni qaab dadka competitorska maxaad kaga duwanaan kartaa adigu markaad wax xayeysiinayso waayo waxaanu aragnaa shirkado badan oo qaarkood waaweyn yihiin oo copy paste u yahay xayeysiisyadoodu markaas kala tusaanayso dee shirkadkan waaweyn like qaarkood waxa khasaaro ku aba inay leeyihiin departmentka waxa weeyaan marketingka waayo departmentkaasi waxa weyn ka shaqeeyaa waa sidii loo sameyn lahaa xayeysiisyo cajiiba iyo istaraatiijiyada marketing loo sameyn lahaa oo lagu hananayo yacnihi lagu kasbanayo dadka lagu talagalay inay adeegan amba waxa weeyaan laabtan iibsadaan marka tan kale waa inaad la timaadaa dee competitive analysis oo aad si fiican u falanqaysaa waxyaalaha tartami karto maxaad kaga duwanaan kartaa yani xayeysiisa maxaad kaga duwanaan kartaa waxa weeyaan muuqaalaha maxaad kaga duwanaan kartaa marka marketing campaign kale markaad samaynayso amba ololaha yacnihii suuqgeynta kale aad samaynayso tani wax badan bay yacni kaa saaciidi doontaa qodobka shanaad wuxuuna leeyahay waa inaad develop garaysaa qaab messagekaaga aad u gudbinayso hadday oraah noqoto hadday video noqoto hadday noqoto yacnihii dhegeysa hadday noqoto like xayeysiiska si guud marka loo sameeyo advertisement siyaasad gaar uu leeyahay iyo qaab dhan oo yacni loo sameeyo cause of xayeysiisku in muuqaal keliya uu noqdo iyo shay la koobiyeeyo uu ka sal yacnihii ballaadhan yahay waa inuu ummadda dhaqankeeda ilaalinayaa iyo diinteeda waa inuu waxa weeyaan yani waa inuu yahay emotional based advertisement si fiican ula falgelaya dareenka ciddana doonayso inaad u gudbiso oo ka turjumaya baahida doonaysa inaad xaliso shayga saddexaad wuxuu dhex arki karaa macmiilka waxa weeyaan qofkan markuu alaabtan ama adeegan isticmaalo kadib caynku xaalkiisu noqonaya taa waxba kusii foolnayno iyadoo waqti bay u baahan tahay qodobka lixaad wuxuu noqonayaa marketing channelskaaga dooro channelskaas suuqgeynta ku samaynayso dooro يعني واحد مركز تعرف فيسبوك كلية تلحق صارية واحد مركز تيك توك كلية تلحق صارية واحد مركز تي في كلية تلحق صارية أنت بدك ليكسن كرتها وتكون طريقتها يعني يعني هي ميكس تشانلز واستعمال كرتها تكون طريقتها كتاسنا يعني هو قيد كميدا استراتيجية ده قبل تتبادل من اللي هي كبي آيس وين ياشا أكادوني سنة تسميسو حوالي الماركتينج استراتيجي إني استراتيجية سوقين جو أي كوليستي محاط بكرنيسا مكون يشرا ميشرمنتس وين يشرا
aad ku yacnihi cabirayso ood ku qiyaasayso in shaygaasi guulaystay ama aanu guulaysan oonu targetkii gaarin marka waxa weeyaan waa inaad u samayn kartaa yacnihi daily tracker si maalinla ah waxa weeye lagu tragaraynayo oo lagula soconayo tallaabooyinka la qaaday oo dhan sidoo kale KPIs wayna jiraan KPI maxaa loo soo qabsaday waa key performance indicators waa dhammaan furayaasha loo baahan yahay si wax lagu qiyaaso hawshaas say u socoto ila waxaan input baa galay marka haddii marketing copy aad gelisay $500 haddaanay waxba kaaga soo noqonin oo sidii aad ugu talagashay aan waxba u dhicin khasaaraad ku jirta minimum loo si ugu talagashay u dhacdaa amba kaba badataada qodobka sideedaad wuxuu noqonayaa marketing strategy-gaaga waanaad la wadaagi inaad awood u leedahay inaad la wadaagi karto teamkaaga ugu percent gareyn karto si ay kula fahmi karaan kula jaan qaadi karaan yani teamka market risk-gaaga marka inahani waa inay yaro kooban oo kamid ah yani marketing strategy process-ka oo ah process-ka ama hanaanka uu maro marka la sameynayo marketing strategy ama strategiyad suuqgeyneed waqtigeedii uu gaadhay aad baad mahadsantihiin